haddaba dawada ugu wanaagsan oo masayrka loo mari karo marka horta intaan dawada u gudbin waxaan rabaa inuu waali yahay oo uu dadka wareeriyo laba qiso yar baan rabaa inaan soo qaato qisada hore aniga ayaa wareystay gabadhii ku dhacday hooyo Soomaaliyeed way hadda waa nooshahay marra magaceeda inaan sheego laakiin waxay iiga warantay masayrkii iyo waxa uu ku sababay qiso kamid ah qisada kale la gabar goobjoog ka ahayd baa iga warantay oo maanta iyaduna waa noosha qisada hore aniga aan wareystay waxay ahayd hooyo kamid ah hooyooyinkeenii hore ayay ahayd hadda waa hooyo weyn waxay ii sheegtay in si ku talagal aan ahayn oo aan aysan u qorshaysan goor galab ah loo soo sheegay in odageedii caawa aroos yahay oo uu reer kale caawa gabar kale raadsaday caawan aroos yahay isku magaalo nama aysan joogin oo magaalo kale ayuu ku aroosay haddii warkii isla galabtii ay raadisana waa loo xaqiijiyo waxaa la yidhi waa sax ninkaasu caawa aroos waay maamadu waxay ii sheegtay si wax ka noqdeenba waan labistay wiil yaroo markaa u joogay oo 8 jir meelaha ahaa ayay gacanta qabatay haddana asagay raadinaysaa guri way ka soo degatay war hebelow way leedahay waxay raadinayso oo ay baadigoobayso waa wiilkii gacanta ay ku hayso waa cunug yar oo aan hadal badan oo energy badan u haynin inta uu la hadlayo hooyo way kan bulay hooyo way kan ma maqasho banaanka ka raadinaysa war hebel yaa arkay banaanka u soo baxday xaafadaha dhex martay war hebel mee dadku way la yaaban yihiin hebelka ay raadinayso wiilka gacanta ku asagiina waa halku gacantu haystaayo wuu daalaso u lahaa hooyo way kan mana maqlayso markay soo daashay say sheegto cabaar soo socoto dadku ay la yaaban yihiin on guri ku soo noqday yaan fariistay igu tiriyo waxaan fariistay guriga markaan fariistay waxaan arkay tiri wiilkii oo horteeda taagan markaasaan ku weeray tiri war maanta dhan baan ku doonayay xageedaad de hooyo maanta dhan baan kula socday maanta dhan jiidaya ma oo gacanta maana ku jiidayo gacanta ku hayay ha maanta dhan baa hooyo way kan kula hebelooda maanta dhigu haysa maamada waxay ii sheegtay isbedelkii ku dhacay maskaxdeedu inay sabab u ahayd inay garan weydo wiilkii gacanta ay ku haysay erayga naxinta loo sheegay ka naxday guurka laga qariyay odageedii sameeyay naxintii ay kala kulantay in ay muddo 20 minute ka badan ay dhawaaqayso ay raadinayso wiilka gacanta ku hayso marka aqalka caadi ku cabirtid qof weyn oo raadinaya ilmihiisii oo gacanta ku hayo oo raadinaya oo hebelowda ku hayo xaafadda ka dhex goobay yaa arkay leh oo qof kale aan la hadlaynin kaliya iska hadlay war hebelowda isaga haysa oo cidna aan weydiinay oo xaafadii dhex maraysa ma qof iyo lagu sameyn karaa ma waa nooc wareer ah oo waali ah oo dumar ku dhacay qisada labaad oo in uu masayrku dhibaato u keenay gabdhaha maskaxdooda ama waaliba geliyo waxay ahayd gabar waxay iga sheekaysay gabar lagu yiri odagaagii waa guursaday saas oo kale intuu ka qariyay arintii markay cadaatay oo xaqiijiso maalmo show madaxu xanuunayay ee waxay goostay inay guriga gubto guriga ay deganeed inta gubto inay banaanka uga baxdo wiil yar baa u joogay oo aan sanad gaarin waxay samaysay rikoorkii wiilkii mood rikoorkii ay guriga u yaalay ayay wiilkii u qaadatay asagii rikoorkii way xambaaratay isku xirtay masaasadii baa u qaaday gurigay dab ku dhijisay albaabka inta xirtay dab ku dhijisay wiilkeeduna ku jira wiilkii meeshii ku gubtay oo ku dhintay kadib say u qabtay inay ilmihii xambaarsan tahay markay ogaatay inay rikoorkii xambaarsan tahay ilmihiina ku dhintay guriga ay gubtay waa waalatay arrintaasna waa arrin xaqiiqo ah oo hadda waa macruuf halkaa maxaa gaarsiiyey marka gabadha waxaa gaarsiiyey qarinta laga qariyay guurka waxaan kaloo ka fahmaynaa in masayrku uu lumiyo caqliga iyo deganaanshaha iyo fikirka saxda inuu lumiyo inuu yahay xanuun ku dhaca maskaxda oo qofka ilowshiya meeshuu joogo sidaa darteed waa inaan la fudaysan qofka masayrsanna waa in si taxadar ah loola macaamilo oo loola hadlo wey
marka habka ugu fiican ee lagu daaweyn karo masayrka aniga waxay ila tahay seedaba inaan la qarsan guur hadday ka soo harto aadan qarsaninna oo ay kugu dhacdo inaadan markii horeba sheegin oo masayr jirana waa inaad la fariistaa qofka masayrka ku dhacay oo hooyada ah oo aad waqti badan gelisaa inaad u sheekayso inaad weheliso inaad la joogto inay dareento inaad maaragtay muhiimad siinayso oo aan lagaa qaadin sababta waxa fahamka ku xiran iyada waxa weeye in lagaa qaaday waa inaad fahamsiisaa kalsoonida idinka dhaxaysa inaad soo celiso inaysan burburin inaad sidaada u tahay in aad jeceshahay inaad doonayso inaad dhibaato la rabin hadday kaa hesho dareen joogto ah oo isku soo noqnoqonaya oo aad ku daaweynayso maskaxdeeda hooyadaas way badbaadaa masayrka ka baabaa laakiin markii ay kugu buuqdo haddaad buuqa ka cararto waa ka sii dartay dulqaad baa loo baahan yahay inaad fahamtaa loo baahan yahay waxaa ogaataan in guurkan la guursanayo sharci ahaan ilaahay noo baneeyey oo ragga ilaahay u baneeyey oo inay guursadaan 2 gabdhood iyo inay guursadaan 3 gabdhood iyo inay guursadaan 4 gabdhood baa ay u furan tahay ninkii daaqa u leh ama awood u leh caafimaad iyo mid maskaxeed iyo mid jinsi ninkii u leh intaaba in uu maaragtay guursan karo ilaahay waa u baneeyey laakiin qofkaan awoodin allah wuxuu yiri hal hay isaga soo koobto marka maadaama uu wax bannaan tahay waxaa loo baahan dumarku inay fahmaan qofka ilaahay waxa inuu baneeyey laakiin ay u baahan tahay in lagu xurmeeyo in loo sheego tirakoobka hadda anigu aan sameeyay u dambeeyay ee ku saabsanaa qaybaha masayrka dadka guurkooda iyo inta sheegtay waxaan ogaaday in ayaamahan dambe 10 sano hadda u dambeysay raggu markay guursanay intooda badan ay u sheegaan xaasaskooda oo in laga qariyaa hadda ay aad u sii yaraanayso inkastoo rag badan ay isticmaalaan maxaa ka dhashay markii loo sheego dabcan dee waa la iska fahmi doonaa marka aniga waxaan rabaa inaan tala siiyo ragga raba inay guursadaan ama horeba u guursaday laakiin aan laga yaabo mushkiladaas masayrku inay haysato waxaan rabaa markii dhinaca guurku galo oo aad doonaysid inaad guursato adoo xaas hore leh horta waxaad ogaataa xaaska hore mar walba inuu ka prioritisan yahay kana muhiimsan yahay xaaska dambe guursanaysa raggu waxay jecel yihiin wax cusub laakiin waxaa ogaatiin nolosha rasmiga qofka kula bilaabay oo zero kala soo bilaabay oo aad isku tababarateen oo guriga kugu horeeyay oo adiga saldhiga kugu noqday in aadan burburin oodan ku bedelin nolol cusub hadday iyadu aysan dhibaatadaas lagu bedelay ay sabab u ahay ragga waxaa rabaa mar walba mas'uuliyadooda inay maaragtay isticmaalaan inay qadarinaysaa inay ixtiraamaan xaasaskooda hore ee la soo qaatay noloshoodii koobaad la soo dhisay maxaan ku yiraahdaa gurigooda mustaqbalkiisa iyo koritaankiisana qaybta ka soo qaatay casharkeena maanta intaas ayaan ku soo koobayaa waa Cismaan Sheekh Qoysbile oo idin leh insha Allah ta'ala dib ayaan u kulmi doonaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh